bismillaahi raxmaani raxiim aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyey gelinkii dambe ee maanta iiraan ayaa duqayntii ugu xooganeed waxay ka geysatay magaalooyin dhowra oo ku yaala gudaha israa'iil mar kale iiraan waxay muujisay awoodday u leedahay inay ka gudbi karayaan gantaaladeeda nidaam difaaciidyada israa'iil oo dhowr la kab ah qaraxyo waaweyn ayaa mar qura isqabsaday bartamaha koonfurta iyo waqooyiga israa'iil goobta ugu daran ee waxyeeladu ay gaartayna waa magaalada xayfa iyo sidoo kale duleedka magaalada talaabiib dhismaha caanka ah ee dhanka ganacsiga dhaqaalaha iyo sidoo kale goobaha ay aadka dadka ugu badan yihiin ku yaala ee guushdaan lagu magacaabo ayaa sidoo kale la arkaya maanta iyadoo gantaal ka mida kuwa iiraan uu si toosa ugu dhacayo magaalada xayfa waxaa la diiwaan geliyey ilaa 2 ruux ilaa iminka inay dhaawacmeen magaalada qudus haddii aan eegnana wararka soo baxay waxay sheegayaan in la bartilmaameysada dhismo ay deganaayeen qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada ee israa'iil dhismayaasha ay deganaayeen wasiirada ee la duqeeya ayaa lagu waramayaa inay yihiin kuwo isku dhex yaalay dhimasho iyo dhaawac ayaana la diiwaan gelinayaa sidoo kale gantaalada dowladda iiraan ayaa maanta markii ugu horreysay waxay ku dhaceen deegaanka lagu magacaabay elkana deegaankanna wuxuu dhacaa dhinaca waqooyi ee daanta galbeed dhulka israa'iiliyiinta xoogga ay ku haystaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaa goordhow la hadlay warbaahinta waxaana uu yidhi waxaan go'aansanay inaan difaacno xorriyadeenna suuragalna ma ahan inaan wax badan ka tanaasulno israa'iil waxay soo weerartay barnaamijkeena nuclear-ka ee nabadda iiraan waxaa lagu waramayaa duqaynta galabta inay ujeeddada u samaysay ay ahayd inay ka hortagto diyaarad la sheegay inay kasoo degaysay garoon diyaaradeedka magaalada talaabiib ee ben gurion diyaaraddaasoo la rumaysan yahay inay dad ka qaadi rabtay garoonka inkastoo aan macluumaadyo kale lahayn ayatullaahi cali qomeni ayaa ka hor weerarka intuusan dhicin bartiisa twitterka waxa uu soo dhigay qoraal uu ku leeyahay israa'iile waad inaga helaysaan wixii aad inaga doonayseen tani waxay muujinaysaa awoodda iiraan ay u leedahay mar kale in ay mar qura ay gantaaladeeda u qaybin karto dhowr magaalo oo maanta seeriga digniinta waxaa mar qura isqabsaday koonfurta bartamaha iyo waqooyiga israa'iil xitaa deegaanada ku yaala xadka ay wadaagaan lubnaan iyo sidoo kale dhulka falastiiniyiinta ayaa seeriga digniinta u isqabsaday kadibna markii waxyar seerigaasi uu dhawaaqayba waxaa xigay gantaalada dhawaaqa qaraxyada holaca iyo qiiqa baxaya muuqaalada iyo sawirada lasoo bandhigaya waxay muujinayaan waxyeelada intay la eg tahay iiraan mar kale maanta waxay gaartay xaafadda lagu magacaabo bicru sabca halkaasoo waaberigii maanta ay ku waabariisteen gelinkii dambena ay maanta ay u raaciyeen waxaana soo baxaya inay bartilmaameysadeen xarumo muhiim ah oo dhanka sirdoonka tiknolojiyadda iyo ganacsiga iiraan waxay si cad u sheegtay inay 2 meel ay si gaar ahaaneed u bartilmaameysan doonaan waa xarumaha ganacsiga oo ay doonayaan dhanka dhaqaalaha inay israa'iil kala dagaalamaan iyo sidoo kale xarumaha ciidanka waxa israa'iil ay dhinaca kale ay sheegtay in 25,000 oo ruux ilaa iminka ay waxyeello ay kala kulmeen dhismayaashoodii oo kadib markii ay burburiyeen gantaalada iiraan wararka qaar ee soo baxayna waxay sheegayaan qaar ka mid a dhismayaasha dhulka hoostiisa ah inay gantaalada iiraan ee waxyeello ay gaarsiiyeen oo loo baahan yahay in la dayactiro qaarkood dadka ajaaniibta iyo carabta ayaa lagu waramayaa inay faquuq ay la kulmayaan iyadoo ay ugu wacan tahay gantaalada dowladda iiraan xaaladdu aad bay u adag tahay israa'iil maanta dhankeeda waxay duqeymo ay ka fulisay gudaha magaalooyinka dalkaasi iiraan waxaana moodaa inay wadaan qorshaha ay doonayaan inay ku baabi'iyaan xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda iiraan ee dhanka ciidanka iyaga oo rajeynaya in awoodda marka hore ay baabi'iyaan kadibna wax walba ay u suurageli doonto warbaahinta israa'iil qaarkood waxay bilaabeen durbe inay ka waramaan in difaaca hawada israa'iil uu burbur qarka u saaran yahay qaybo badan oo ka midana waxaa lagu waramayaa howlgab inay noqdeen sidoo kale waxaa jirta cabsida laga qabo in qaar ka mid a gantaalada difaacaasi haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo helin in maalmaha soo socda xaaladdu ay kasii dari doonto inta badan gantaalada iiraan ayaa maanta si toosa u dhaafay magaalooyinka muhiimka u ah israa'iil sida magaalada talaabiib oo caasimadda ah magaalada xayfa oo xaruntii ganacsiga iyo sirdoonka iyo xarumaha ugu waaweyn ee militariga ay deganaayeen sidoo kalena muhiimad gaar ahaaneed u leh israa'iil iyo magaalada bicru sabca taasi oo muujinaysa fashil aad u xoogan iiraan maanta duqaynta ay geysatay waxay kaga jawaabayeen waxyeello gaartay kadib markii israa'iil ay baahisay inay dileen 3 ka mid a saraakiisha ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan inkastoo aanan macluumaadyo badan laga helin wararka ugu dambeeya ee soo kordhay haddii aan eegno ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa baahiyay muuqaalka gantaalada maanta ay soo tuureen waxaanay ku sheegeen tani inay ahayd mawjadii 17aad iyagoo adeegsanaya gantaalada riddada dheer si ay u burburiyaan xarumaha ugu muhiimsan ee ay doonayaan
wararka soo baxay waxay sheegayaan mar kale inay iiraan isticmaashay gantaalka Sigil 3 la yidhaahdo, gantaalkan oo awood gooniya leh, waxaana gantaalkan uu ku dhacay xarun warbaahineed oo ku taala magaalada Xayfa sida wararku ay sheegayaan. xaruntaasi waxaa deganaa kanaalka 14 iyo kanaalo kale oo Israa'iil ay leedahay. macluumaadyada kale ee soo kordhay haddii aan kuu raaciyo, magaalada Xayfa waxaa hadda soo kordhaya tirada dhaawac ay diiwaan geliyeen Israa'iil, waxaana ay sheegeen 17 ruux inay sii marayso. waxaa la isweydiinayaa 8 maalin kadib maxaa xiga, yaa guulaystay ilaa iminka, halkee ayaa la kala joogaa, yay yihiin ciidanka sida gaarka u tababaran ee dowladda Iiraan ka badbaadiyay qorshihii Israa'iil ay damacsaneed maalintii Jimcaha ee lasoo dhaafay. barnaamijkeena xiga ayaan si gaar ahaaneed ugu falanqayn doonaa insha Allahu tacaala. waad mahadsantahay, waxyaabaha soo kordha waan kula wadaagi doonaa. amaana Allah.